markana waa wararkii UK. 24 saac la soo dhaafay waxaa UK u geeriyooday xanuunka coronavirus 110 qof, waana tiradii ugu badnayd ee muddo 24 saac gudahooda u geeriyoota xanuunka. tan iyo intuu xanuunka bilowda waxaa qaaday wadankan UK gudihiisa 3,466,849 qof, halka maalin kastana ay xanuunka qaado ama uu haleelo 33,350 qof. tirada guud ee dhimashada ee 7 maalmood ee ugu dambeysay marka la xisaabiyo 25 bishii January ku dhamaanaysa xanuunka waxa uu dhimatay guud ahaan markii la isku daro 7 maalmood 99,470 qof. dowladda UK ayaa lagu dardargeliyay in macallimiinta iyo booliiska dalkan UK si degdeg ah looga wada tallaalo xanuunka COVID-19. kooxa wakiila ka ah booliiska iyo macallimiinta ayaa cod dheer ku codsaday inaan lala sugin xilli dambe oo macallimiinta iyo booliiska si degdeg ah loola gaaro tallaalka. macallimiinta iyo booliiska wadankan UK ayaa waxa ay ka tirsan yihiin kooxo gaar ah oo loogu yeero key workers amaba shaqaalaha muhiimka ah, waxayna kooxaha u ololeynayaa iminka ay sheegeen in ay la kulmaan weeraro afka ah iyo qaar kaleba, mararka qaarkood candhuuf lagu tufo, marka qaarkoodna siyaabo kale oo gaar ah loogu neefsado. xogayaha arrimaha gudaha ee wadankan UK Priti Patel ayaa ku margatay su'aalo kulul oo laga weydiiyay eedo joogto ah oo dowladdu ay ku eedeyso dadweynaha korarka faafista xanuunka coronavirus. barnaamijka ka baxa telefishinka ITV ee la yiraahdo magaciisa barnaamijka ka baxa telefishinka ITV ee la yiraahdo Good Morning Britain ama subax wanaagsan Britain ayaa gabadha wariyaha ah ee aalaaba daadixisa Susanna Reid waxa ay weydiisay Priti Patel sababta ay dowladdu markasta eeda ula doonato dadweynaha oo iyaguba dhibaato badan ka soo gaadhay coronavirus. xogayaha arrimaha gudaha ee UK Marwa Patel ayaa hadalku ku xirmay kadib markay jawaabo quman u weyday su'aalaha la weydiinayo. Susanna oo gabadha wariyaha ah ayaa su'aalihii ay weydiisay xogayaha waxaa ka mid ahayd sababta dowladdu inta u fasaxday qoysaska inay isu iman karayaan xilligii ciidda masiixiga ee dhammaadkii sanadkii hore, misna dadkii oo dhan ganaax kala daashay amaba ay ugu jaha wareeriyeen hadallo iska hor imanaya iyo amaro aan kala cadayn. ninka la daadihiya Susanna barnaamijka Good Morning Britain Piers Morgan ayaa isaguna ku tilmaamay inay ahayd qalad weyn in wadanka lala raago in xayiraad lagu soo rogo ciidii masiixiga ka hor, taasoo uu ku sheegay inay keentay in xanuunka uu sii faafo. xogayaha arrimaha gudaha ee UK Priti Patel ayaa waxa ay sheegtay in waxa ay qoysaska uga digeen ay tahay in xubno tiro badan aanay ku kulmi karin guri gudihii, hase yeeshee sida loo qaatay aanay ahayn. dadka 70 jirka ah iyo wixii ka sarreeya ee tallaalka COVID-19 qaatay waxaa ka mid ah mutacallim Soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa qurbaha sida magaalada London, Xuseen Diiriye Afrax. Xuseen ayaa bartiisa soo dhigay qoraal iyo muuqaal muujinaya inuu qaatay tallaalka COVID-19 oo dad badani tuhungeliyeen. Xuseen ayaa qoraalka ku sheegay inuu isagu tallaalka aaminay oo qaatay, wuxuuna dadka ku booriyay gaar ahaan Soomaalida in ay tallaalka qaataan oo aanay jirin sabab ay uga baaqsadaan. 9 sarkaal oo boolis ayaa midkiiba waxa lagu ganaaxay 200 oo giniga sterlinka ah kadib markay isugu tageen biibito oo cunto ku dhex cuneen, qaxwana ku dhex cabeen, lana arka ayagoo dhex fadhiyo islana jooga. sawir ayaa laga helay muujinaya 9 sarkaal oo booliska ah oo wada fadhiya biibitada gudaheeda, biibitada oo ku taala xaafadda Greenwich ee magaalada London. taliya sare Rob Atkin ayaa waxa uu sheegay inay sax tahay in saraakiisha la ganaaxo si lamid ah sida loo ganaaxo dadweynaha kaleba, waayo waxa uu sheegay in saraakiishu yihiin kuwa laga doonayo inay dadweynaha ka ilaaliyaan inay sharciga jabiyaan, hase yeeshee kol hadday iyagiiba ay xadgudbeen ganaaxooda uu yahay sax iyo sharci.
xilliga hadda tan la joogo ayaa shuruucda xayiraada saaran wadanka UK guud ahaan waxa ay dhigaysaa in maqaaxiyaha iyo biibitooyinku furaan karaan lagase gadan karo oo hore loo sii qaadan karo wixii cunno iyo cabida hase yeeshee aan lala dhex fariisan karaynin. Doris Hockney oo ahayd mid ka mid a mataanaha isu ekaada ama afka qalaad lagu yiraahdo identical twins oo ahaa kuwa ugu da'da weyn wadanka UK ayaa u geeriyootay xanuunka COVID-19. Doris iyo walaasheed la mataana ahayd Leland Cox oo loona yaqaano labadoodaba Tipton Twin ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markay qaadeen labadooduba xanuunka coronavirus horaantii bishan aanu ku jiro ee Janaayo ama January. qoyskooda ayaa sheegay in Doris Hockney oo ahayd mataanaha midood ay geeriyootay 5tii bishan halka Leland Cox oo la mataana ahayd cisbitaalka iminka laga saaray oo guriga la geeyay ayna soo kabanayso. mataanahan oo ka soo jeeda tuulada Tipton ee ka tirsan gobolka West Midlands ayaa caan ku noqday sida ay u maareeyaan noloshooda markastaana rajo wanaagsan u muujiyaan iyaga oo ku soo bandhigaya ama adeegsanaya dhanka internetka. wararkii UK ee telefishinka Kalsana waa naga intaa.